I'm incredibly proud to be here today. Despite what I suffered in Somalia for 15 and a half months, since the famine was declared in Somalia, I've increased my efforts to support the people of Somalia. markii ay bilowdeen gargaarka loo fidinayo dadka tabaalaysan ee Soomaaliyeed ayaanu anagu waxaanu go'aansanay inaan caawino. waxaana idin sheegayaa inaan 300,000 oo qof aan jeclahay inaan raashin siino. Mogadishu waa magaalada adduunka ugu wanaagsan, waxaadna leedihiin badda adduunka ugu quruxda badan isla markaana ugu weyn. waxaan haatan soo ifbaxaya nabad iyo wanaag oo aan jeclahay inay noqoto mid hergasha. Providing education to the Somalis across the country. Thank you so much for inviting me to be here.